halkani waa xaafadda Islii ee ay Soomaalidu ku badan tahay ee magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya iyadoo Ciidul Fidriga ay ka dhiman tahay maalinta berrito ah oo kaliya ayaa waxa wadooyinka iyo dukaamada dharka lagu iibiyo laga dareemayaa saxmad iyo ciriiri aad u fara badan oo muujinaya u diyaar garowga ciida waxaan mikrofoonka la dhex qaaday Soomaalidaasi ku dhaqan xaafadda Islii iyagoo ka warramay dareenkooda ku aadan u diyaar garowga Ciidul Fidriga adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga Samsom Ahmed Ali Samsom Ahmed Ali waxaan joognaa xaafadda Islii waa u jeednaa dadka aad bay u soo buuxdhaafiyeen wadooyinka meel la mara malaha carrada waa jaam maalinka ciidda waxaa nooga dhiman berri oo kaliya bal ka waran adiga dareen ahaantaada iyo ciidda sidee u aragtaa wallaahi waa ku faraxsanahay inaan Soomaalida meesha ku soo badanayno isku bahaysanayno waxaan leeyahay ummadda muslimiinta meel walba oo joogtaan kullu caam wa antum bikhayr ciid wanaagsan baan leeyahay yaa halka ka salaamaysaa Samsom ciid mubarak yaa u diraysaa dhammaan eheladayda u dirayaa gaar ahaan hooyaday iyo aabahay iyo walaalahay iyo dhammaan asxaabtayda waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa mahadsantahay Samsom adigoo ku bilaabaya magacaaga Abu Maxamuud Maxamed Ballah maxamuud maxamed waa u jeednaa xaafadda Islii maanta dadkii soo buuxdhaafiyay ciid hal maalin kaliya nooga harsan sidee u aragtaa ciid iyo farxadda ciid sidee u aragtaa wallahi waa soo dhaweynaa waa farxad iyo reeraan weey waa gartay yaa maanta maxaa is leedahay ciidahan ciidii hore maxay kula duwan baa is leedahay wallahi waa jawiga aad u kacsan waa soo dhaweynaa waa jawi aan caadi ahayn weey ma sha Allah yaa kaga salaamaysaa ciid mubarak leedahay halkan waxaan ka salaamayaa asxaabteeda dhammaan wixii maqal iyo muuqaal iyo yaqaan waa maasanta magacaaga adiga ku bilaabaya بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي وحوي بلداج علي بلداج الصلاة كرو هذا بلداج علي بلداج الصلاة بلداج مقعي هذا ولس ما شاء الله إن بلداج هو واحد كويديننا واحد أغنى حافظ إسلام وانشونا إن ربنا نويمت إن واحد الوجرة مالك عيد مالك كوريسي بريو كلي تينا هرسن سدوا ورك تدرين كاجي تدرين شعور الصومالي إسلام كنا بسم الله الرحمن الرحيم مركور الحمد لله رب العالمين وحنا ما علينا إلهي سبحانه وتعالى وبيش بركة سناد ومالمي ودم بنسوق جارسية وعقلوا كرجينا إلهي سبحانه وتعالى إنه نور دمسترو سنة كيس كلنا إلهي بالواقع بالبش ونور جارسية أبي أهانتي دمان ومدة المسلمين تعملوا بالجوان وعن ليه عيد مبارك هذه أدنى وفرح سنة هاي ما دام واحد كدر من سوق إسلي يعني سيدا بالشدة الصوماليات وفرح سيهين سيدا عيال كذو ذيجيان سيدا فرحة الله هو معناته المسلمين الله غيب قالوا هذه بان وفرح سنة هاي ما شاء الله بلداج هل كان ياك سلام إذا عيد مبارك يا ليدا وعن هل كان كسلام يا دمان ومدة الصوماليات يعني خاصة وعن هل كان كسلام يا هويدا معان ولا الذي يقول بالله يا مقعد يا دكان كاجا مقعيس مقعد هو محمد أحمد آذن دكانك هو أمل وF 125 كسر دوال محمد ومحي بيته waxaan iibiyaa dharkan kalsooyinka ragga kawaha sararka sarwaaladiisa caruurta waxa soo dhamaan gadaa sida ognahay maxamedow waxa la joogaa maalmihii ciida bariyo kaliya ayaa ciid inooga dhiman waa u jeednaa dadka diyaar garowgooda iyo sidii u diyaar garoobayaan adinka naftirkiina dukaama ahaan dharka aad gadaan waxa lagu jiraa waqtiga aad jaamka iyo ciriiriga aad ku jirteen bal ka waran maalmahan iyo maalmihii hore kala duwanaanshaha iyo farqiga u dhaxeeya farqi weyn baa u dhaxeeya maalmahan dambe iyo maalmihii hore kastamka hadda iidii baa dhamaada way soo badanayaan والله الحمد لله فهذوين بانكو قبنا إلهي ما هذله كاستن كانوا صوب بدن يا معلم كقدم بس وأوجدنا دكانك وحيابا أكو درك رجع أو بدن شاتياشة سراويشة محا أو بدن ولا جاكتا أو بدن ولا جاكتا يعني واحد دكان كان يلا ولا جاكتا waxay ugu istaaga malahan muu malaynaysaa maalinka ciid hadaan kula kaftamo dad badan oo dharkaaga qabo magaalada ku aragtid dad badan anaaba arkay rag badan oo imaaday baa dharkayga xiran oo ka gaday anigu okay maxaa u sheegaysaa dadku ku daawanaya maadaama ciid hal maalin inooga dhiman tahay baradam la rajeynaya inay maalinka ciid tahay maxaa u sheegaysaa dadka Soomaaliyeed waxaan sheegayaa waxa soo dhow maalmihii farxadda maalmihii ciidda soo dhow waxaan sheegayaa maamo kasta ilmo dhashay iyo qof kasta asoo qaangaara intuba inay labistaan maamaduna ilmaheeda u labisto ninkii qaangaaruhuna labisto maalmihii farxadda soo dhow ma santa maxamedow adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo dukaankaaga magaciisa magacayga Cali Maxamed Cabdafee waaye dukaankayga waa Tawakal wuxuu ku yaalaa Amal Balasa magacii wali dukaankayga Tawakal adiga magacaaga أنا محمد عبدافي أنا waxaan ku weydiinayaa maxaa iibisaa dukaanka maxaa ku iibisaa أنا waxaan iibaa kabaha caruurta kabaha dadka waaweyn maxay ahayd dharka dresska wax kasto waxna waa isku dhex gadaa ka waran maalmaha ciidda hadda lagu jira bari oo kaliya ta ciid inooga dhiman suuq ahaanta iyo barnaamijyaha maalmahan aad si fiican waxa u gadayso ku gadma iiga waran ما شاء الله kabaha aad ay u socdaan dharka ciyaalka aad ay u socdaan alxamdulillah waa barakeysanna bismillaah magacayga waa Ifraax waxaan joogaa dukaankayga ciid ma sha Allah farxad baa dareeminaa dharka ragga gadna ciyaalka dumarka dharka adoomida nambarkayga waa F124 soo dhawaada ciid mubarak
waxaa inoo gabagabo ah bishii barakeysneed ee ramadaanka dhammaan muslimiinta waxaan leenahay ilaahay nabad iyo caafimaad ha inagu gaarsiiyo bishan bisheeda kale maxamed khadar maxamuud gada channel Nairobi